waaba sanad kuleelkiisa wata ilaahay naasto 2022 waa ninkii labaad oo miyara noqda oo isagoo taagan leh xaaskaygii waa la qaatay nin kale ana guursaday waa qamar maadi gaari anaa qaba waana xaaskaygii aniga waxa igaga tagtay inay xamar hooyadeed u kaxaynayso hooyadeed baa tiri waan kaxaynayaa ina kale wuxuu qaaday markii meel aado waxaan soo maqlaaye muslimniyo gaalkii intii mood la soo uumaya aminkeena joogaane macaane mahayra amine ma jira warkaane maxay ugu jawaabtay maya abo ma jire warkaas meel ku xoore miirkaa adeege mininkaa ma moogaanta ma la soo galaaye iyo waa la soo galay ba ahaytay kanuna hooyadiisu ka dacweye waariyaa ilaahay yaqaan jeclahay hooyo nafteedan kaa jeclahay laakiin waxyaabaha ay ugu samaysay dunida ugu necbanahay waan u necbanaan doonaa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان سومالوي ميل البادونيدو كجوكتان يبهدو قوشبا waxaan leeyahay Ilaahay waxaan ka wada rajeynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo amal khayr mid kastoo muraad Ilaahay wax lagu bariyaa muraadkiisa inuu mid khayr ka dhigo ku xanuunsan oo caafimaad taam siiyo kuwa geeriyooday jannadu udgoonada hooy uga yeelo kuwa laga geeriyoodana samir iibaan ka siiyo kuwa dhashaysta raxmaan dhasha u barakeeyo kuwa dhal suugayeen dal badan oo barakeysan hasiyo laba hore dalkeena iyo nabada iyo bulshada Soomaaliyeed mudan Ilaahay uu weydiisay war maxay yaab istabayaan maxay yaab istabayaan 2022 ilaaho midaan loo rahayn nooga dhig waa khayrkiisu baday asaate yaabku badan aan ma dhaweyd maarkiisii nin qaylinayo la war islaantii baa laga boobiyo dhashiyo dhalaanki gunad baan u baahanay anoo taagan baa leebo second kii baan arkaynaa ya taa male iyo hadal baaba jiray nina kan iyadoo xayiyo qoslaysa iga tagtay buu taagay balwa kana warkiisa dhageysta السلام عليكم magacayga waa jaamac saciid maxamed qamar maadi gaari anaa qaba waana xaaskaygii aniga waxa igaga tagtay inay xamar hooyadeed u kaxaynayso hooyadeed baa tiri waan kaxaynayaa bay aniga igaga tagtay ilaahayna igaga sareeyo maaragtay oo aniga maaragtay aan ku dhaaran karo kitaab jaamac ku maray inaana furin ay xaaskaygii tahay oo meel aan dalqad igaga dhacday aysan jirin laakiin haddii dee la dhahayo gabar nin qabo anaga khasab ku qabno waan maaragtay dawal isxiniyo taabanaya because haddii aan malaysan inaan Mareykan joogo Muqdishona waan joogaa waana ku noolaa waana imaan karaa marka gabadhan anaa qaba hanu meelan ku furan ma jirto nin caafimaad qabaan ahay nin miirkiisa joogaan ahay nin tamaaman ahay carruurtayda hooyadood waaye anigana halkaan markii iga tagayso wanaag bay iga tagtay hooyaday baan kaxaynayaa laakiin furitaan iyo futuun midna igagama aysan tagin marka saasaan inii sheegaya insha Allah waan salaamaya assalaamu calaykum ilaahay ma loo noqonayaa aakhira badana waxageeba loo socdaa baash Yurub baad haatan oo Mareykanka United States of America ka bilaabatay ilaahu meelaha kale iyo muslimiinta ha gaarsiin oo inta nagaga ekaysi wax dhaga hay'ad damiirka iyo diintuba ay qaataan ma waanina kan horidiisa muxbi iyo kalgacalka iyo karaamo inay ka dhaxayaan buu jeedkiisu yahay oo sheegaya nabad bay ku kala tageen oo Muqdisho tagto iyo waxa xiga waa oori kale dal iyo dhalaan oo haysa wuxuuna tilmaamayaa wacd ee baahi ku maraya inay xaaskiisa u qabo oo waxa weeye shariya shaydaan iyo furnimo meesha uu sanima hada waa baka ala Mareykanka hadii aan joogo macnaheedu ma inaan Muqdisho imaan karin waxna ka taabo inuu diriro dagaalamo waa tagaysa hadii dulmi la soo aad arkay dad ficil fiican ka dhiganaya gabadho nin u dhaxdayna nin kala aad oo haween u badan waxa weey fiidiyo iska soo duubay oo la way istaahilaan oo la haduu nin raga ahaan waa oo xaaladii rageed gudan waa nin kala gabadho aad macnaha waana muslim bay ku leedahay way haboogan tahay xijaab bay xirad kitaab ilaahay bayna dacal maraysaa hadalkaas waa mid aan khayr wadan jid baa bahay baneeyay hadii labada tan lamaanaha ay shalay is doortay isku dareen fahmi waayaan wixii dhaqan iyo diin iyo darajo isla doonayaan inay kala dhaqaaqaan waa dariiq hase ahaatee in wax fudud oo sahlan laga dhigo reer dhisan in balaayo ka soo duldhacdo oo gabadhii oo nin u dhaxdo oo dhal iyo dhalaan iyo carruur waxayso meher ku xiran yahay nin kale ay ku xiranto amala sahlan ma aha waana wax lagu cadaabto waxyaabaha sharka iyo shaydaanka ah ee xumaanta iyo fawaaxishta magaranaysa horseedkoona hadii la dhayalsado oo aan laga tigtoonaan
dheef laga heli maayo waa beri waxaynu ku fidayo weeye ninka halkaa waa cadaaranaya oo le reerkaygu waxa weeye nabad bay ahaayeen oo orideedu gurigaygii khayr bay kaga tagtay oo le bela iga shaqaysatay iyo baas hada waxa weeye waxa halkaas soo istaajiyo ka dhawaajiyo wax dareen wacan ma waana wax reer ku gubto oo reer ku gubto weeye hasa ahaatee miidihii baaba wuxuu noqday aalad wax laga baafiye ahayd aalad wax kasta hadeerta oo xaalad oo jirta lagu tilmaansado gabadha tan kolka aad shalay isguursanayseen ehel iyo qaraabiyo dad ba idin dhaxeeyo dariiq islaameed iyo diin baad marteen maantana haddii aad isfahmi weydaan dee ehel iyo qaraabaad leedihiin iyo qoys idin dhaxeeya macna soo kordhin mayso in aad miidiya soo istaagto oo tiraahdo xaal waa sidaa iyo naagtaydii baa ma garanaysaa nin kala guursatay iyo waxyaabo noocaasa dan iyo darajo dhashaad iyo dhallaankaaga iyo aayahaaga uma aha reerkaagu xataa haddii ay ahaayeen reer xaaskii ama lagaa falay ama balaaya qaadatay ama shaydaan qaadatay ama ay miyir daboolantay ama dee ayba kugu soo noqoto dareen wacan ay kugula joogto iyo reerkaasu kalsoonadu ku dhisnaado meesha ma taalo sababtoo ah waxaan miyirku qaadan maskaxdana u wacnayn baad muuqaal ahaan ku duubto bulshadii tustay marka xaaladaha noocaasa dhaqan ahaana uma wacna bulshadan in loo soo bandhigo dareen ahaan uma wacnee war ha laga tigtoognaado xaaladaas waxa weeye dabkeeda ha la damiyo waa tan kaleeto iyadana aan ka yaababa waxay tahay adduunya akhir samana nin hooyadii ka dacwoolay bal waa ka jeclahay hooyo nafteedan kaa jeclahay laakiin waxyaabaha ay igu samaysay dunida ugu necbanahay waan u necbanaan doonaa laakiin waa iska kaa cafinayaa hooyo because of wax walba foosha ay ii martay yaa ka daran laakiin hooyo waa noo kala eexatay aniga iyo walaalahay waa noo kala eexatay taasna waa caadi haddii uu aabba noolaan lahaa maanta laakiin dhib ma laha xoogaa yar cadaalad yaraa heli lahaa at least wax walba ahaato waxaa idinka raali gareenayaa maadaama ay shucuurteeda bedelantay jeclahay hooyo ninankan dhalinyarada hadda ka hor baa barnaamij kusoo qaatay gabar Soomaaliyeed buu qabaayo dad Soomaaliyeed qaarkood baa waxay jaaifeenayeen xaaskiisa waxay lahaayeen waa jareer iyo hadallo cunfi oo noocan marka waxaan tilmaamayay inay gabar Soomaaliyeed tahay lama horaan ay tahay isku dal iyo diin iyo dhaqan ay yihiin oo isdareen fahmayeen haddaba ninkan Soomaaliyeed wuxuu tilmaamayaa in jaaifo qabiil iyo waxaan garanaysaa qalbiga u wacneen oridiisa lagu tilmaamayo in la kala geeyo xataa dad garasho ay moodeen hooyadiisna wuxuu tilmaamayaa inay ciishay oo colaadisay hadda ka hor ayaa waxa lagu soo wadiray sawiraan Facebook nin dhalinyaro ah dabeeto waxa la yiri isinu ninkaas muddo waan laayna baaf dabeeto magaciisa iyo wixii baa la sheegay haye baan yiri bal ninka iiga xog warramo nin xanuunsan buu ahaa dhanka miyirka iyo maskaxda maxaad isleedihiin maqnaashaha inta leeg way keenaysaa dabeeto waxa la sheegay isaga iyo walaalkiis ka yar inay hadda ka hor Kenya wada joogi jireen dabeeto kan weyn ee la leeyahay ayaa wuxuu aaday Suudaan intuu xoogaa lacag aruursaday kii yaraana uu ka daba yimi barshuhu marka wuxuu ahaa kan weyn inuu soo taaribo dhanka iyo Liibiya soo maro kii yaraana wixii walaalkaas si weesho waa ka daba yimi hadaba hooyadu waxay ahayd mid ma garanaysaa xoogaa xog uga loo ahaa dareen ahaan mar walba mid gaara ma garanaysaa la xajaclaysto kan yar danaysa kii weyna lacag uma soo dirin danka ma aysan gelin oo soo naqay ku tagay kii yaraana socdaalkiisa iyo safarkiisa iyo qarashkiisa mar allaala markuu hooyo yiri oo ku calaacalay ayay hay'adtiro wixii dahab iyo diinaar iyo maal ay haysaba siisa kii weyna kii yara isagoo arkaya ayuu waxa weeye safarkiisa iyo socdaalkiisa Ilaahay u fududeeyay waxa weeye oo Yurub soo galay hadaba inta kuma kaan kii weyna waxa tooriyaa ducay iyo habaar hadaa mid doonayso soo noq wuxuu yiri hooyana nin weyna dantan doonayana inaan qurbato adiga intifaac ku siiyo hooyo ii ducayo waxaad siin kartay siiyo hay ciilan kii yaraaba adiga diray may adigu mas'uulmateedii iyo mid miyir leh hadaba wuxuu yiri waxba hay soo dirin hasa ahaatee dalkii ku soo noqon maayo Ilaahay wuxuu qadaray eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii ka agdhowaa xaaladahan in xaaladda qaadan waayaan oo ma garanaysaa inankii ay lacag soo diraan dabeetana sida uu qurbihii ku soo galo qurbihii hadduu cabaar joogana muuqii maqal waayo marka way jiraan waalidiinta qaar dhashooda iyo dhalaankooda kala dhaweysta wax fiican ma ilmaha kan waa darbaarisay 9 bilood baa uu ku soo sitay waad jeceshahay jirab baad u soo martay hase ahaatee dareen buu ka mudan yahay inaad u dul qaadato oo darajeyso aad ixtiraamto kolka uu weynaado oo daawato wax darajo iyo fikir wanaagsan waxa weeye adiga ka bartay macallimad baa tahay macallinku markuu ardayga wax baro xilligii uu qalan jabiyaa xilligii uu qalan jabiyay macnaheedu ma inuu bilaa maamuus iyo miirkiisa disho watan kale
ninka kan dhalinyarada ah iyo kuwa waalidiinta iyaguna ishaarada khaldan ku tilmaamayo muuqaal intay soo duubaan halkaas soo fadhiisanay duco iyo darajo gaar ay mudan yihiin iyo dareen wanaagsan inaad siisaan haddaad maanta halkaa ciishooto aad ooydo waa isdilayaa tiraado iyo hooyadee baa sidaa i heshay hadaf gaara iyo waxa weeye wax ximila adiga kuu keeni mayso hooyo labaadna ku siimayso hooyada waa mid iyadaana ku sakaraadee waxa weeye 9 bilood uur kugu soo sitay tan kale waalidiinta nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed hadduu gabar Soomaaliyeed guursaday oo ay dun wadaagaan oo ay waxa weeye dal wadaagaan oo ay diin wadaagaan oo ay idin la yimaadaan oo yiraahdaan xalaal baan ku doonaynaa iyo dariiqii quraanka rasuulkuna sheegay calayhi afdal salaatu wasalaam kuna qoosqaat qurbaha waxa ka socda shisheeye hablaha guursanayay wiilashu guursanayay صدق يا صدقوا مياد gurigooda tay karaan maal mujooy karta waa maya maamuus iyo macna ku idin yeelay miya oo miirkeena wixii hadal oo ka yimaada ixtiraamay waa maya marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee isguursanayaan qabiil iyo waxaan ficil fiican ahayn lagu kala keen yaana qulubtooda waxaana darajo iyo diin ahayn la dhexgelin ilmaha kun ama hasan weynaad ama hasan yaraad ama waxa weeye gabooyaha ahaada ama qabiilada kale ha ahaade waa ilmo Soomaaliyeed taasana darajo ku waa in naftaada aad dareensiiso aakhirada aad u baqdo waalidka maanta dhashiisu ay guursanayso oo waxa weeye dhashoodii kala geenaya dareenkii iyo wanaagii iyo diintii iyo jacaylkii iyo dalkii ay wadaageen na ilowsan cimri awoowada ku jira indee waa ay dar marka waxa weeye ilaahay loo noqdo aakhira badan barnaamij kale oo kale aan waxa weeye intaan dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh